daawadaha sharafta leh ma kamid tahay dadyooga faraha badan ee dhibaatooyinka xooggan ka haystaan joogtaynta howlaha ay bilaabeen weligaa ma samaysay yool oo ma bilowday inaad ka shaqayso kadib ma aragtay adigoo joojiyey howsha aad bilowday dhowr maalin kadib keligaa ma tiitani waxay ku dhacdaa qaar badan inaga mid ah waxay inoo horseedi kartaa wareeg niyad jab ah oo ah yoolal aan la fulin iyo fursado badan oo la lumiyey haddaba muxuu yahay xalka haddii aad diyaar u tahay inaad ogaato sida joogtaynta u bedeli karto noloshaada nala sii joog muuqaalkan ilaa dhammaadka magacayga waa Jaabir Cusmaan JB halkan waa madasha dhalinta Soomaaliyeed ku soo dhawow xikmadso nagu soo bir page-keena like follow soo dheh sidoo kale xikmadso page-keena waxaad kala socon kartaa YouTube-keena iyo TikTok-keena adigoo ku qoraya xikmadso soo booqo subscribe dhaho TikTok-keena follow soo dhaho mahadsan haddaba daawade waa maxay joogtayn afka qalaad Ingiriis waxaa loo yaqaanaa consistency عربينا waxaa lagu yaqaanaa al-istimraariya fahanka guud ahaan joogtayntu waa inaad ku sugnaato ama aad ku adkaysato shaqo ama hool ahaysid shaqadaasi si maalinle aad u sameynaysid sii wadista ama joogtayntu waa wax gabi ahaanba ka maqan nolosheena guul walba qofka gaaro waxaa asal u ah joogtaynta waxaa la yiraahdaa qofka halka uu joogo iyo halka uu hiigsanayo waxaa u dhaxeeya buundo oo ah joogtaynta waa mustaxiil inaad hadafkaaga iyo riyadaada gaarto joogtayn la'aan daawade adiga kala dooro laba xanuun midkood xanuunka soo gaara joogtaynta shay dan kuugu jirto iyo xanuunka ka qoomamaynta wixii dantaada ahaa ee aad seegtay cidda kala dooranaysa waa adiga daawade joogtaynta ayaa ah sirta ugu muhiimsan ay leeyihiin dadka horumarka gaaray ee adduunka ku nool kuwaasoo joogto ka dhigtay qabashada howlaha u yaalay xitaa haddii ay daalan yihiin ama caajisan yihiin joogtaynta howlaha aad bilowday waxay astaan iyo halbeeg u tahay guushaada waxayna soo dhawaysaa rajada wanaagsan ee ah inaad yoolashaada qarka u saaran tahay inaad gaartid sidaas darteed shayga keliya ee ah haddii aan isticmaalno ee aan ku fiicnaanayno waxaas aan u isticmaalnay waa joogtayn marka maxaa diiday inaan u isticmaalno awooddan joogtaynta waxyaalaha wanaagsan oo aan nafteena iyo nolosheena ku horumarino haddaba su'aashu waa sidaan ku joogtayn karaa ficilada aan ku gaari lahaa hadafkayga daawadaha sharafta leh waxaan kula wadaagi doonaa dhowr qodob haddii aad raacdo kuu sahli doono joogtaynta howlaha muhiimka ku ah qodobka koowaad sabab cad la kaalay way sahlan tahay in qofku go'aan degdeg qaato kaasoo ku dhisan caadifad laakiin inaad caddayso islamarkaana sababayso waxa aad doonaysid oo aad meel ku qorato waa muhiim si marka aad caajisto howsha aad u xasuusato hadafkaaga waa inuu yahay mid xaqiiqi ah aad xaqiijin karto haddii kale ahdaafta waaweyn ee aan xaqiijin karin waxaa ka dhalanayso inaan si fudud isku dhiibno oo aan ku niyajabno qodobka labaad awoodda caadooyinka marka aad si joogto ah u qabato ficil aakhirka wuxuu noqdaa caado taasoo kuu sahlayso inaad ku adkaysato yoolkaaga caadooyinka waxay yareeyaan ku tiirsanaanta awoodda waxay ka dhigaan kuwa fudaydiya howlahaaga adigoo dareemin culays nafta ah ugu dambayn aad la qabsato qodobka saddexaad edbinta nafta edbinta qofka naftiisa isla xisaabtanka iyo mas'uuliyad iska saaridda ayaa dhammaantood ah qaybaha keenaya qofka inuu si joogto ah u qabto howsha uu bilaabay dhab ahaantii joogtaynta waxay noqonaysaa farqiga u dhexeeya guuldarada iyo guusha howsha si joogto ah loo qabto waxay qofka ka caawin kartaa inuu ku guulaysto goob walba dadaal kaga yimaado qodobka afaraad hadafkaaga soo koob inaad bilowdo caado way sahlan tahay laakiin inaad la qabsato oo aad ku celceliso aad bay u adag tahay sidaas darteed isku day inaad wax yar oo fudud ku bilowdo si nafta ay u dareento guul iyo fudayd hadafkeenu waan kordhin karnaa waana balaarin karnaa markaa la qabsano laakiin wax yar ku bilow si aadan u niyad jabin qodobka ugu dambeeya qodobka shanaad dulqaad yeelo marka aad wax cusub joogtaynayso waxaad la kulmaysaa diidmo badan naftaada ka imaanayso hawadaada ayaa kaa mashquulinayso howshii aad waday waxaa laga yaabaa in howshii sidii aad moodaysay ka cuslaato marka waxaa qasab ah inaad dulqaad yeelato kana adkaato iska caabintaas gudahaaga ka imaanayso naftaadana ka ilaaliso hadallada taban ama negatifka ah daawadaha sharafta leh ha ilaawin haddii aad wax cusub ka faa'iiday muuqaalkan inaad sii gaarsiiso walaalahaaga hadduu ku qanciyana ha ilaawin inaad like saarto si dad badan uu sii gaaro ugu dambayn guushu waxay ka dhalataa ficilada yaryar si maalinlaha aad u qabato joogtayntu waa furaha guusha